marka intaasoo qof waa waalihiin miya been maa laga sheegaya intaasoo qof been maynoo sheegayaan mideeda labaad halka gabadha halka qiilka annaga dhan usoo wada hadlan waxay tahay annagoo qabiilo iskugu jiro oo aan kala socnayn oo youtube lay dhan ka wada simana anaa berri soo fariisano aan ka wada simana waxay tahay adi meedaaba yaalimeedka maxaa u karti laabsatay way kugu dhacday inaa shib dhahday ahayd way kugu dhacday moogtahay oo yadda way kugu dhacday inay aamuste ahayd laakiin inay cod soo duubto codka waxaa ku jiro oo bayaanis ah shalay waa iniga waa booskay sax ani hadda meeqaa fuul uroy meeqaan waay mataqaanaa dadkii shalay ii dhawaay dhan maanta ilama joogaan keligee iyo kariinka because waxaan bartay dhibaatadii ugu badnayd maalintay igu dhacdaan bartay marka ogow Khadiijo dadka maanta walaalka ku ah dadka asxaabta kula ah wax ilaahay kuuma keeno والله ماشي دريمي سيد أو حنونك أنا قبل سلمبر كده حتى واحد ولوان رادي وايو ما أنت كل جدا جورج جوكت أنت أصلا واي حنون سنة لبعد تنبرك بعد ما حكسوا دوني سيكو كانت أنا هذا أصحاب هنا أنا إيجا ورقة حالة دي ما حيجسوا دوني دي مش اللي ما سووا بقنيس وقولها أوكي مكوتي دني أنت أصلا استحواي مركي نعذي لا بقرض على جلة قف كبني آدم كان نفط إن اللسكة إن لقيمة في عن لا بقرض على جلة أنا isku asxaab aan ahayno isku team aan ahayno oo kaale aan isu imaan ahayno haddana qurbana cas joogno isweeshanayna way dhacdo qaladkii labaad maxay dhacday meedkii oo yaalo inaad iga korti laabsato taas adi ma qaada leed Khadiijo abaayo mala qaada lahayn idhigayso qalad la suubi saaxiib oo abaa horta idhigayso YouTube leed ka xanaaqni abaa hal mar idhigayso hada qof ka dhimanin ma jiro adduunyada ma fahanti qofaan taariikh kusoo dhicno xanuun ku qabsaninna ma jiro ya qof walbana hadduu runta ka hadlo qofkuu jecel yahay markuu ka tago qofku wax ku sameeya maalin ma iloobayo markuu dhibku haysto ama lagaa dhinto ama dhib ha kugu dhaco qofka kaa tago ama kaa dhinto ama lagaa qaato adi whatever ay aato qofkaa jeceshaadkaaga inaad dareento inuu heshito anaa kuu sheegayo qofka gabadhaas waa loo dhawaay way dhacda xaq alle ka dhacday laakiin waxa lagu xad gudbay oo qalad ah fiidiyowga ee walaashay noo soo duubtay feelo ahay qalad weyn meedkii yaalo oodan u tagin oo xatii war iridda markay ka abaayo waa qaldana raalli ahoo walaalay markii hore walaa way qaboobi lahayd fiiri waaba dhahay aniga hadaayaaba dhahay inay fiidiyo soo duubaan waxaa ugu fiicneed inay israacaan ay gabadha u tagaan ay dhahaan abaayo waa kaa qaldanay magafa waa ilaahay naga raali noqo because ayadana garteed fiiri ayadana garteeda way qaada lahayd ani marka Khadiijo waxaan dareemaa marka inta tago iga tagtay igu soo noqotay haddana iga tagtay igu soo noqotay waxaan dareemaa inaa ay rabto waxay ahayd saaxiib inay anaka naqanciyaan iyo barraqda Soomaalida caydooda ma ahaane waxay ayada inay u dagaan hadda cunuga mala duugo Soomaali u nool abaayo Soomaali hadda mala duugo hadda cunuga mala duugo markaas wallahi way soo dhaweenayd ilaa shalay iridda ka xiratay haddana mar labaad iridda kama xiraleen maanta meedaa abaayo waa la isku qaldamaa waxbeen ma laakiinse anoo Allah u naxariisto Khadiijo ku dhihin dabaqan isla deganahay haw ii bala waa dhahaas dadaa qancina fiyugayga ka fikira dee adduun oo dhan saas mana la isla yaabay abbaay adduun oo dhan aba saas raal hada ma iyada cunuga Soomaaliyeed meedkii ma wax soo furatay halkii amira fiidiyoo soo duubtay laakiin gabadha cunug ka dhintay ma wax soo duub ma gabadha cunug ka dhintay waxay tiraa tacsiya ii taalo YouTube ma tuubi kari bacda tacsi ala kala baxaa mama horta bini aadanka qalad uu dhacaa wax kasta way dhacaan qof walba qaldami karo gabadha cunug oo ka dhinta qaldami karto gabdhaha kala qaldami karo wixii hadii wala sii wada la dhaho waxa la sii noqonaysaa xumaan la sii tagaysaa taasaaba ka wadaa aniga taasaa ka wadaa teeda kale midaa kuu sheegaa Khadiijo waa ku fahmay inaad dhowsi joojiye waa sax Soomaali meel looga badbaadayo male anigaas 4 saac dhibaan ay kadeedeen nafti ilaahay ay keeneen intaas anoo isnooleyna oo aragtay niigu dhax nool 5 sano ka hor soo barnaani adi intay ugu baratay intay taagnaa waa shaqaysaneys aroosa taagnaa dirac ma qabino marka ay baranays ilaa maanta daa itira kabar dirac isiib guri mugdi fariiso ma ka yeelaa marka saas ay wada dhawaan war gabar yar oo hadda Jarmalka joogto laba cunug laga qaata aqoontiga loo qoraayo aqliga naagtaada xarakoonayso naagtaada dhuuqdhuuqdo naagtaada quruxda badan maxaa dharka ma iska siibi lahayd toobada ala nasiib marka hal xaliyo
way dhacday dhibta meesha dhaco waxa raaligelin waaye videogaas xatii in laga bixiyo ani wallahi waa codsan lahaa oo because hadalka meesha markii lagaa taabto meesha uu mudan yahay no raaligelin in hadda inka dadkii oo Malaysia joogda ma soo wada hadlin waa wada anaga dhan waa attention fiican la siinay maxay ku dhaqmi doonaan aqliga ma la soo daba kici doonaan waa abaayo dadka Malaysia joogo fiiri dadka Malaysia joogo hadda sheekadii dadka qaarkood marka reality-ga laga hadlo sheekada qabiil u bedeleen qorar badanaas maraani oo leeyahay reer hebelow dadkaas shamsaha lagu qaado awal bareer hebelay ahaayeen qalad waaya laakiin moogtahay isku jiraan qabiilo badan isku jiro moogtahay Malaysia YouTube leeyda isku jira may waxaan iga qaldan cunug hooyadiis tahay dadkaas aabiisna qabiil kale yaha ku jiro dadka meesha jooga qabiil bismaan dadkaas way isku jiraan dad badan isku jiro dadka anaga ana qano amiire iyo adno iyo waxa waaye iyo arrimaheena iyo walaalkiis dadka caanka la rabaa iska day dadka soo wada baxbaxay iska day dadka caanka ah laga hadlooya hadda labas qoys bis ma loo socdaa labas qoys ma caanka cad kale la dhooya hadda ka warne reexajiyo ma ahane shaashiye ma ka warne reexajiyo dadka cad lagu xisaabinayaa abartood aha uma leena aabahood may aabood ma ahan adi un way isku jiraan ma ahan qabiilkaas shuqul ma kulaha weliba anaa hadda kuu sheego marka qofkaasa soo qora sax waaye ka warne qalad waa ayaga dhahoy faadimo soomaalida laftirkeeda biimaalka iyo shiiqaasha iyo horta ma ogtahay qaarkood inay dadka tiina faray shiiqaal waaye gabadha yiriistoo kale oo cadda oo shamsigii lagu qaaday abgaal waa wiilka kale murursado waaye maya gabadha kale oo yartaa abgaala yiriista oo shamsigii lagu qaaday abgaal waaye tiina faray shiiqaal waa warama meeshaas qabiil ma lehay laakiin ceeb waaye in oo qabiil loo rogo feel waaye waxyaalahaas laakiin ani waxaa ka xanuunsaday bes just laba mar in gabadhi la qaniino laba mar ceebna waa in laba mar la qaniino isku raacaan hadii familkaas way ka soo kale adina un soo marin doonta xal marin hawada because gabadhan way yartahay way ka dhici karaa qalad amiir way fududahay xataa absolute meedka inay u tagtay ahayd gabadha ama ay aamusto shib ma horta inaa aragta ma aqaano amiiri adna markii la amiira kulul amiira kulul fudeedkeeda caaw wuxuu dhaafsiiyahe dadkii reer Malaysia dhana waa shamsi lagu qaadooya reer Malaysia dhana waa shamsi lagu qaaday maxay ba asadee waxba way wada aamusiin dadka aqliga anaga hadda caaw dad badan oo YouTube leh group isku xariisan warse wax u dhaceen warse waa la soo ogaaday waxaa la yiri mar kasta gabadha waa laga qaldayaa mar kasta gabadha waa laga qalday hadda fiiri ani markay wax ugu dhaceen laakiin way tiriyaa mar kasta waa laga qaldan yahay laakiin maxaa dad u qancinay marka ayada ma qancist ayada waji karta ayada biri wax isla dudubaysiin halo ani hadda markay wax ugu dhaceen sheeka tarnaa jirto gabadha laftirkeeda way jirin taariikh cudurka way qabtaa sheega fankii sugaanta ku jira qadiija fankii sugaanta dhinaca ugu jira walaalaha Sweden Europe America nimcaana ugu xageeyo oo Europe naga joogo dalmaryare kuwii Sweden joogay subeer DJ-yadii dadkii caanka dhan way ii wada imaadeen anoo taleefon qabanay idaacadii dhana isoo raadiyay because qofku markuu xaaladda ku sugan yahay adaa raadsanaysid saaxiib runta markaa artid in la raadsaday eed gabadhaas way sadhacday in wax laga dabduubo haddana ma ahayn meedkii oo yaalo qalad loo geystay waa ad aana loogu xadgudbay qalad aan qaadanaynana ma ahan haddaana beesha YouTube leeyahay beri waagaa ii beri aniga insha allah hurdadii waa iiga tagta caabe inkastoo xaq u hadlo weligay aan qof ku xadgudbin qabiilna waa necbahay in la sheego laakiin endo waa lagu qaldamay ad lagu qaldamay mana dhacayso insha allah reer Malaysia mar dambana ma suubinayaan tan markaan dhagtooda wax ugu ridnay Malaysia jooga kan wuxuu uga soo qaadayo bay waxay u maleeyaan inay meel u buuxinayaan adoo hal qof kaliya haysta hadaad u tagtid adiga haday ku soo raacdo 1,000 ama 2,000 asaga waxba kuma aha laakiin adiga waxbay ku tahay ayagana waxay u maleeyaan
in maaragta wuxooda aad hoos u dhacaad ku ridaysid iimaankay la-ayihin halkaasay la-yihiin wallaahi والله والسلام عليكم gaajada saaxiibey waa ku barya saas xunadhiin والله واقعت أنا يوتيوب أبا أنا ويدي أنا أتجي أنا قعمي يا هذا كورة والله دكتور عاون كدونة طول أيوة كريسي أنا أتجي imagine ما أنت قبل ماشي شفت أنا هذا شوق لها أنا horta walaa gabadhaas xanuunay dareemusa أباي مركي cunuga kiliibkiisa ma aragtay سلامة مين مقشان إيمانك ولا دوب جرت وين ربينا مركي ويلك كجرة ضواي ودي إيمانك أنا قاعدة ما ديكر والله ولا دوب جرت واحد شو وحان والله أعوذ بالله قف كاس وضوء أدينا بريها كسفريسن كرتاس وموجد waxaan hay'adadka qabsan diij caday ha gabadhan soo qaban ku dhahay a'uudhu billah السلام عليكم عليكم السلام adag waaye والله واقحما إلى ما شاء الله خديجة ما مقلة abaayo عباي سؤالك وصحايا سمسم قبر حنوصل ما فهمتي ويلك بس abaa anaha iisiin dadka commentiga ku jiro soo qoraa iidaa sheegtay aniga ku dhigo ما أدري المقل مجرى سمسم ما حنوصنا ويلك بس حنوصنا ما فهمتين walaalay juuju ma hadash ani ma dhahay abaa mas commentiga noogula soo qoray أنا dhageystay iyadoo dhayso ani iyo wiilkayga waa jiranahni هنا أدري معاتي مجرى isbitaalku markay ku jiro anaa ka jawaabay sug iga raalo abaa anaa sir sukorna waa xanuun la noolaan abaa suga maya gabadha ma xanuunsano waxay ku tiri youtube-keeda anaga dhageysana dad u dhawaana aniga aad dhageystay aniga hadalaan hubsana meel lama imaado public because beri uu soo noqona ayada ma xanuunsano cunuga intaasoo sano la daalaa dhacaysay mar wuu u caafimaaday mar wuu u xanuunsanay kiliibka aan la ooyo ka seexan waa waxay tahay hooyo hadda waa fiicnaaduu yidhi hooyo oo baraangiga ahaa soo marka gabadha ma xanuunsano ayada way caafimaad qabtaa cunuga ilaahay subxaana qaadirka ka yacni xanuunkaa la soo doontay alxamdulilah ilaahay samir ha noo siiyo maanta si sharaf leh intaasoo sanayna adkaysanaysa waana gabar yar oo kii ugu horreeya ku coratay inuu yahan jecla ilma adan aniga dadkaan aqoon ima laha aniga samsam wiilkeeda walaashiisa haysta ma fahantay marka waa kaasaa fiiri nafta uroon waxay ku tiri iidaa tiri abaaye ma oran ma fahantay khadiija ilaahay uma keeno laakiin toban qofood oo kala jaarayso khadiija adi femilka dhageysano iska dhaaf dadkan waalno tiktok ku jiro taqaan tahay abaaye maqal qofka kula hadlaya waa soft mj wiilkii maanta dhintay gabadhayda walaalkeed way ma fahanteen marka samson gabar xanuunsan maaha wiilka besa ka xanuusnaa marka ilaahay laga baqo commentiga waxaa ku soo qorina way caafimaad qabtaa samsom wiilka bas baa naga xanuunsanaa ilaahay ha u ziyaadiyo macaanto laakiin kaliib saas ahaan dhageysti xabiibtiyay no abaaye macaanto maaha ma fahanteen samsom wiilka bas ka xanuusnaa oo xanuunka kansarka ka hayay ilaahay sabr iyo iimaan wiilkeeda ka siiyo ilaahay wiilkeeda sabr iyo iimaan ka siiyo idan ilaahay shar ma tuso yaa rabbi abaa intaas ku xira way intaas waa necbahay qofka uu si dhaawacmay intaas ku xira dareen maya abaa anaka dhaawacan gabadha subxaanallah anaka dhaawacan intaa ku xira absolutely